يا فرتون ديرية كور أنا شافيراني أنا فير هالمر فيري فرتون أنا فيري أنا فيري فرتون آيو فرتون ديرية عقال فرتون عافمات كذا كور فرتون وحنوسن تاي فرتون نكي أركو عود كذا يو وجه كذا يصوت كذا وقبر سومالية وحنوسن وحنا وبندقينا إن معناها أن ضدك ودوينا يقانو وأقونصده فرتون وقبر حنوسن وقبر معناها جوجتو ديان كأفجوي برجي سميله فرتون وحيل جوجتا ويل أوي وذات كذا أي واحد يسكت علين وين حنوسن تاي حسن فرتون كورن عافمات كذا أديك يا حاس كذا هاي صاحب فرتون مدة بدن أيان هاي وأنا اللي تاحوجا معنا إن وجع كروقات عد كذا ما قالنا حنون أياك سوى جهي حنون سوى جهي واقرته وحنوسن تاي واقرته مدة بدن وهايا مدة بدن وايسا سنة يقولون نوشاي 6 سنة عمل 6 سنة يقولون نوشاي فرتون وحال كذا وحقرابة إذا ما ركت مية هاي واقرته هاي markay imaanaysa ka waran makalageeda ku timid fartuun mise adigu unbaan meel ka soo wadatay meel wada ah ka soo waday meel oo duur oo baadiya ahdeed meel baadiya ka soo waday dawadeed maxay ku tiri gabar naag madax banaanana waa gartay waa isfahanay waa iskana kaxsan ayadana way caafimaad qabtay mugaas ma caafimaad qabtay mise sidaan ahayd waa xanuun xogaa adiga caajis waa iskaga jiray laakiin sidii waa dhaamtay waa caafimaad qabtay hadda waa dhul dhacday aad ay u leedahay waa gartay hadda meeqad ay ku dhashay 3 عرور إيش لبوا وإيج صغير 3 عرور يكون شيء لبوا وكاس صغيرتي مد جبر يكون جوجته فرتون أهل كذي وقرابة مارت مي من ما يسو مي واقرتي أيضا كورنا عافمات كذا كورنا هذا ما هي عنتا هان راشين مالن واسكو عنتا وحلو كيو مالنا ما عنتو هذيك مربس سوى هذيك عافمات كذا عادي ما فرتون يولتي فرتون سدا إذا أي شيء دليشة وحي ترى مريحانة هاي دار فرتون يفير المر دليشة إذا ما يدري فرتون وعن هاي قبر مريحانة مريحانة يكتاي وقردع يكتاي سيدا يكون شيء تمرك عاف ما ضبطي وقرتي فرتون ديري عقال أو gabadhan magaceeda iyo wajigeeda iyo suuradeeda ninkii yaqaan waxaan u baahanahay inay nala soo xiriiraan waa gabar Soomaaliyeed waa gabar xanuunsan telefoon numberkana waxa weeye furaha 5 weeye 44 waxaan waxa haayo ninka wadaadka oo xaaska Xasan Maxamed Ibraahim waa wadaadkayda nooshahay oo ay u dhashay 3 caruura laba ay ka naqatay iyo hal ay u joogo fartuun maxaa ku maqashay meelahan markay joogtay ilmo kale meel ku soo dhashay mise maaragtaa carruur kala soo dhalay intee ku nooshay tiri qof kale iga dhalay intee ku nooshay tiri carruurteeda carruurta mid waa iga dhintay dhahday isbitaal banaadir ku dhintay midna aabisa isticmaalkiis ninka oo ka dhalay waa ninka ka dhalay nin oo abgaalo hilaaba warsangiin nin abgaalo hilaaba waa intuu ku nool yahay oo wuxuu ku nool yahay xamar hadda laakiin ma ogid meel ku nool yahay ma xasuusto ayada laakiin maalinkaas way xasuustay fartuun waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed oo arko codkeeda amba muuqaalkeeda ma hadlayso dalka iyo dibadda ninka ka aqoonsado fartuun ifiir hal mar fartuun diiri cigaal waa wajigeeda saas waaye waa gabar Soomaaliyeed annaga waxayna nooshahay muddo 8 sano waxaan rabnaa fartuun inaan u bandhigno dadka iyo ahalkeeda iyo deegaanka ee laga yaqaano fartuun waa gabar mariixaana waa qolo la yiraahdo wagardhac ninkii garanaayo cid garanayso waxaan rabnaa inay kala soo xiriirto nambarkaas furaha 44 waxaana waaye degmada Afgooy dhabarkeeda meel waxaan u sheegaynaa dadka aqoonsada fartuun diiri cigaal oo wagardhaca oo mariixaana nambarkaas inay kala soo xiriiraan annagana waxaan u sheegaynaa
ummadda Soomaaliyeed meel alla meel ay joogto Fartuun Diiri Cigaal waa nambarkeeda dadkii laga helo waa idin soo gudbinay qadkan ayaan soo dhigi doonaa haddii la yiraahdo